السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waa degan channel asxaabteena subscribe noo saara noo share gareeya ehelkiina la wadaaga aada u mahadsantihiin intii hore ila joogtay intii hadda uu soo gaara videogaana subscribe ka dhaca ku siiya like dhaca ku siiya asxaabteena u share gareeya insha Allah khayra idinku ogahay asxaabteeda maanta waxa idin wadaa qiso ku dhacday gabar yar oo qiso aad u cimro qaadasho leh oo ka hadlayso qof kasta wixii uu sadaqaysto inay hadhowtii meel weyn uga soo baxayso aadna u anfici doonto waxa aad jeceshahay inaad sadaqaystid aad u fiican tahay waliba aad u jecel inaad baxsatid qisadeena sidaan ay ku bilaabanaysaa waxaa jirtay gabar yar sidan gabar yarta waxay ahayd gabar yaraanteedii mid ku soo kortay ahayd rafaad iyo waalid la'aan oo waalidkeedii ayadoo yar ay dhinteen oo laakiin gabar wax garata ah yacni oo yaroo 5 jir ah marka dad kale oo ehel meesha uma joogin dadkii dariskii la ahaa markaas waalidkeedii yaqaanay dariskii ayagaba dad wax iska ahaayeen jiiraankoodii oo aan waxba haysan oo dad iska danyar ah dadkii dariska gabar yarta caawin jiray waxay cunto waxay xirato waxay u awoodaan markaasba way siin jireen gabar yartaas sidaas ku soo noolayd way weynaatay waxay soo weynaataba gabadh Ilaaha toosiyay ee noqotay oo shaqaysata oo wax nafteeda la raadsatay yacni oo maasha Allah gabadh ah bay noqotay gabadhii yareysay ku socotaba Ilaahay wuu garab galay oo gabar waxay noqotay aad hanti fara badan hesha oo wax haysato maasha Allah oo gabar deeqsiyad ah bay noqotay gabadhii maadaama ay dib iyo rafaad nolosheedii intay yareed ay ku soo kortay waalid la'aan iyo faqri ay ku soo kortay Ilaahay hadda uu la garab galay oo gabar wax haysata noqotay waxay sameyn jirtay in ay sanad walba ay wax sadaqaysato si sanad dadka masaakiinta ah waxayna sameyn jirtay maalmaha ciida soo dhowdahay ee si gaar ah dadka wax u siin jirtay mar walbana waxbay baxsan jirtay waxay soo booqan jirtay marka xaafadii ay markay yareed dadkii garab qabta iyada oo wax siin jiray inkastoo ayaga iska danyar ahaayeen xaafadaas ay tagi jirtay ciid walba markay soo dhowdahay oo dadka ay u geen jirtay hadiyado ku jira boxyo cid kasta u gargaraaci jirtay box ugu ridi jirtay waxooda gacanta lacag ahaan iyo wax uma siin jirin box wax ugu ridi jirtay si oo dadka aanan qaar ee dhahan alla maxaa isku dhibta ma ka rabno amal waxaas ee diidi jirtay waxbana maba oga boxka waxa ugu jiro albaabka ugu garaacahay saytihiin u fiican tihiin hayaho hadiyadan qabsada ciida ay soo dhow saasay sameyn jirtay ciid walba u garaaci jirto saas albaabkooda ugu siin jirtay iyadoo aad ay ugu duceyn jireen aad ay u farxi jireen uguna duceyn jireen maalin maalmaha kamid ah ayaa gabadh daris la ahayd gabadhan wax baxsanaysa weydiisay sababta ay mar walba xaafadaas kaliya ay wax u siiso meena fahansaneen gabadha nolosheedii hore waxay ku soo kortay iyo waxay ahaan jirtay waxay aragtay iyadoo wax haysato taajirad ah markaasay gabadhii waxay ugu jawaabtay in ayada yaraanteedii way uga sheekaysay xaafadaas ay ku nooleed oo dadkaas ay saacideyn jireen oo kormiinadeedii ay wax ka soo qaateen oo wax siin jireen oo gabar yaroo iska dhibaataysan ay ahaan jirtay saas darteed ee dadkaas ayadana wax u siinaysa ayna iloobin dadkaas abaalkay u galeen ay uga sheekaysay waxayna ku tira waxay ku ridaa boxyada lacag si ay waxbana waxa ay rabin ugu soo iibsadaan waxay rabaan ay ugu soo iibsadaan dadkaas ee ayada u geenin waxyaabo qaar in u baahan yihiin dhar iyo waxyaabo kale ee waxa laga yaabaa waxa kale ugu muhiimsan dhar in u baahan yihiin raashin wax walba guriga kira lagu leeyahay dhibaato kasta iska jirta saas darteed gabar aqli badan ahayd lacag ugu ridi jirtay saas sadaqa ugu baxsan jirtay marka waxaa dhacday marka magaaladaas ay ku nooleed gabadhaas suuqa ku yaalay uu gubtay habeennimadii ee gabadhan wareysanaysa dariskeeda ay dhayso maxaa sameysaa maxaa sidaana see dadkaas maxaa kaliya u aada xaafadaas suuqiya gubtay gabi ahaanba suuqi oo dhanba wuu gubtay kaliya waxaa ka badbaaday gabadhan hantideedii maxaa yeelay gabadhan waxay ahayd gabar wax baxsato sadaqaysato dadka sadaqada ee ku baxdana wax siisa dad wax haystaan waxa jiraan dadka ayaga la midka ah waxa haysta kaliya wax ugu dar wax siiya
oo faajo lacagta u bixiya iyo gabadhan waxay ahayd gabar aqli badan wuxuu ilaahay siiyey kuma jisaarin dadka masaakiinta iyo dadkii ayada garab qabtay ee wax siin jirtay aad bayna ugu duceyn jireen dadkaasoo kale ducadooda